iyadoo aynu warbixinteena aynu ku eegayno isla markaasina aynu ku jaleecayno fadhi ay ku yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina uu shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa xildhibaanada golahaasi waxay doodooda daboolka kaga qaadeen xeerka arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha iyagoo xildhibaanadu si wadajir ah ugu tilmaamayay in xeerkaasi uu dalku u baahan yahay isla markaasina ajandooga kaalinta koowaad ay soo gelinayaan iyagoo xildhibaanadii dooda maanta ka qayb qaadanaya ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamuud Axmed Ofsiye xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba xildhibaan Xuseen Axmed Caydiid iyo xildhibaan Cabdulqaadir Jirde waana ku saddex ka madow laga dabageeyay haddana iyaga diida oo yiraaha waa iska deynaytaa isbiyada iyaga waxa la yiraahdaa teemo magacaaba technical election management unit haddana iyaga ilaahay iska daayay isbiyadu iyaga islaaya gudoomiye iyaga horta islaaya iyaga haddana heshiiya iyaga marmar laba isu lahayd laba u saaxiiba midna gooniga hadii doonaan isbiyadu iyaga raaca diida marna ogolaada waxaa soo procedure waxaa soo hawli waxaa soo hawli waxa inaga ila xuseeyo ma waxa salaanka bacdi runtii waxaan u fadhinaa kalfadhigii golaha wakiilada waxaana hor yaalla ajandihii kalfadhigii 43aad runtii dood badan anigu soo jeedin maayo laba qodob ama saddex qodob baa soo jeedinaya qodobka koowaad waxa weeye marka ugu horeysa waxa lagu bilaabay in uu ajanduhu ka kooban yahay sidii caadiga ahaa warbixinta shirgudoonka iyo guddiga joogtada iyo guddiyaasha golaha waa maqbuula weeye ka labaad mashaariicda sharciga ee golaha hor yaalla anigu waxaan qabaa taa inaan dib loo dhigto waayo wayba qoran yihiin waxaan ka hormarin lahaa qodobka saddexaad weerista wasiirada xukuumadda waa laga maarmaan sababtoo xukuumaddu waxay xambaartay imika hawlihii golaha iyo hawlihii maxkamadaha waxaad moodaa in ayada mooye cid kale jirinba sidaa darteed waa in wasiirada xukuumadda ka mas-uulka ah la weydiiyaa waxyaabaha sharci darrada ah ay garab marayaan inay golaha hor joogsadaan ama ay hor yimaadaan si looga weydiiyo waxyaabo badan waxaanan odhanayaa sida maareeyaha duulista hawada oo dee ku takrifalay hawlo fara badan oo uu dee isagu u xil saaran yahay aad moodo inuu ku xadgudbay oo ay ka mid tahay dee 16 shaqaalaha oo farsamo yaqaan oo 2010kii loo tababaray security-ga mataarka oo ammaan fara badanna ay ka soo gaadhay dalka iyo dadkaba inay dayuuraduhu ku soo degaan mataarka Cigaal International Airport ayuu yiri iska fadhiisto mushaarkiina fadhi ku qaata waana dhalinyaro dhammaantood waxa weeye waxay ka hor imanaysaa siyaasadda guud ee dalkan ee in la dhiirigeliyo dhalinyarada wixii ay xaq u leeyihiin helaan hadday dacwoodaan ama hadday dhibaato sheegtaan hadday inaan lala hadlo ama wixii caqligala loo sameeyo waxa wax ka bedel iyo kaabis la yiraahdo lagu soo diri jiray dabeedna garyaqaanka guud baa isku koobaaygaran jiray oo xeerka wixii la ansixiyay ama lagu kaaban gelin jiray xeerka waxa oran lahaa si aan waqti aanu inooga qaadin oo aan xeerku inoogu ballaaran xeerkaasi ha noqdo wax ka bedel wixii ahaa uu in la keeno golaha wax ka bedel wixii ahaa hadduu yahay xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka hadduu yahay xeerkii doorashada golaha wakiilada hadduu yahay diiwaangelintii oo malaa'ira ku dhafan uu yahay wixii wax ka bedel ayaa loo fudud inaynu eegno oo dabeedna lagu koobaan gareeyo xeerka wixii hore dhaqan gala haddii kale argushmadu bay noqonayaan oo xeer aanad waxna ka bedelayn loona soo codsanin in wax laga bedelo in qodobadiisii ay ku hor yimaadaan
yimaadaan oo golaha marka yimaadaan fikradaas runtii maan garanin macnaheeda وفيصل على ورابات ووطني ومحمد عبد الله عراء وكل مئة مسبح عبدية صدق هذا الشيء